أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala na waafajiyey majaalista diinta majlis ka mid ah, bal majaalista ugu khayrka badan ku jira, meel ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa lagu koryeelayo oo ardadii qur-aanka baranaysay ee kalaamka ilaahay baranaysay lagu dhiirigelinayo. inaan isugu imaana allihiina waafajiyey baa mahaddaa iskale, alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin. waxaa kaloon u mahad celinaynaa majliskan qiimaha badan, culimada qababaalisay ee suuragelisayna waa u mahad celinaynaa. ilaahayna subxaanahu wa tacaala khayr weyn ha ku abaalmariyo. intaa kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka cabsano, khayr iyo wanaag baan meesha isugu imaanay. haddana in ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa mar walba la isku dhiirigeliyo waan farannahay. aan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqno, kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala tacdiimka iyo weyneynta aan weyneyneyno iyo mid ka sii weyn aan tacdiimino aan weyneyno. kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulul albaab. kitaabka qur-aanka waa kitaab mubaarak oo ilaahay barakeeyey subxaanahu wa tacaala. waxaana loo soo dejiyey in la fiirfiiriyo macaanidiisa aada loogu tadabburo, dadka caqliga lehna ay kuwaana qaataan baa loo soo dejiyey. inaan qur-aanka aan baranno alfaadiisa, macnihiisana aan baranno, inaan ku dhaqannana aan raadino yaa ina saaran oo laynaga rabaa. hadda barashadiisii baan taagannahay, aan qur-aanka si fiican aan u baranno, ku camalfalkiisana aan ku darno intaan macaanidiisa aan fahanno. alqur'aanu xujatun laka aw calayka buri nabigeenu sala allahu calayhi wasalam. qur-aanku ama xujo ayuu kuu noqonayaa maalinta aakhiro, oo wuxuu odhanayaa ilaahay ow addoonkan maalinkiina anigu i akhrin jiray oo igu mashquulsanaa oo igu camalfali jiray, habeenkiina aniga aqrintaydu u soo jeeday oo u taagnaa. ilaah addoonkan iisii daa buu odhanaya, waa ergeynaya. ama adiga ayuu xujo kugu noqonayaayo de haddii aada qur-aankii aada ku camalfali weydo, aadana aqrin weydo, xujuu kugu noqonaya. in allaaliya aqoonta inta aan ka joogno qur-aanka kariimka ayay darajadeenna aakhare ay noqonaysaa. caaisha ridwaanullaahi calayha lmuminiin ayaa waxay leedahay jannada darajooyinkeedu waa aayaadka qur-aanka inta ay dhan yihiin bay darajooyinka jannadu ay leegyihiin. qofkii marka qur-aanka suluskii ka barta, 3 meelood markii loo dhigo meel, qofkii qur-aanka ka barta darajooyinka jannada markii 3 loo dhigo meel ayuu kaga sugnaanayaa. qofkii qur-aanka nis ka barta oo 2 qaybood markii loo kala gooyo qayb qur-aanka ka xifdiya, darajooyinka jannada bartankooda ayuu gelayaa. qofkii qur-aanka dhammaantii xifdiyana wuxuu ku sugnaanayaa darajooyinka jannada meesha oo ugu sarraysa. 3 ruuxun baa ka sara mari karta, nabi iyo qof sidiiq ah. darajada sidiiqiyadu waa darajooyinka awliyada darajada oo ugu sarraysa weeye. waa darajada uu hogaanka u yahay sayiduna abu bakrin asidiiq radia allahu canhu wa ardaa, ama shahiid. 3daa qof mid ka mid ah unbaa ka sara mari kara bay leedahay caaisha radia allahu canha. nabigeenana calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay alqur'aanu shaaficun mushafac. qur-aanku waa ergeeye
ergadana waa laga aqbalayaa aakhiro qofkii qur-aanka intuu barto ku camal falaa wuu u ergeynayaa ergadaasna waa laga aqbalayaa wa maaxilun musadaq waa doodaa qur-aanku waana loo rumaynayaa qofkii qur-aanka ku camal fali waaya maalinta aakhire markii la tago ilaahay wuxuu odhanayaa addoonkan muusan igu camal falaynin waxaa aad u sii daran qofkii qur-aanka intuu barto haddana iskaga dhaqaaqa isagu dadkeeda kuma jiro maxaa yeelay qur-aanka inaad sii dayso aada baratay waa kabiira min alkabaa'ir ah haddooga qur-aanka barashadiisa hore wixii waxaa weeye aada maaragtay salaada aad ku tukanaysa iyo mooyeen faatixada iyo mooyeen barashada hore inaad qur-aanka alfaadiisa aada xifdido inaad ku camal fasho waa waajib laakiin alfaadiisa inaad kulligii aada xifdido sunnay ahayd iyaday sunna ahayd haddana haddii markii aada xifdido inaad ilaaliso waajib bay noqonaysaa haddii aada sii dayso waa kabiira min alkabaa'ir xataa dembi yar maa waa dembi weyn dembiyada waaweyn bay ka mid tahay dembigaana kafaara gud kale ma yeelanayo iyo toobadkeen kale ma yeelanayo ilaa ad qur-aanka xifdiga meeshii waagii hore aad geysa aad kusoo celiso ma yeelanayo toobad kale ma laha waa dembi kabiiraa wey ilahay baa qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan dankan wanaxshuruhu ywma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira qaala kadalika aatadka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyawma tunsaa qofkii aniga qur-aankayga ka jeedsada buu hi alla subxaanahu wa tacaala faina lahu maciishatan danka nolol cidhiidhi ayuu qofkaasu leeyahay waa cadaabu lqabriga qabrigaa lagu cadaabaya wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa maalinta qiyaamana isagoo indhool ah ayaanu soo xaadirinaynaa baa laleeyahay markaasuu odhanayaa rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira ilaahayow anoo indhoola maxaa ii keenaysaa anoo indhoola maxaa ii soo xaadirisay waxbaaban arki jire qaala kadalika aatadka aayaatuna aayaadka nagi baa kuu yimaaday baa lihi fanasiitaha deedna waa iska ilmaanta waa iskaga dhaqaaqday wakadalika alyawma tunsa adigana sidaasaa maanta lagaaga tegayaa baa laleeyahay qofka eelu qur-aanka xataa waxaan la ogolayn milicsiga adduunyada iyo waxyaabahaas inuu eego oo qur-aanka kariimka uu kaga mashquulo lama ogolo xaaraan wey waa ka ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaqad aataynaaka sabca min almathani wاlqur'aan alcadiim waxaanu ku siinay baa la yidhi sabcu lmathani waa suurat lfaatixa iyo qur-aanka weyn ayaanu ku siinay baa layidhi laa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaaja minhum indhaheeda ha u taagin baa la yidhi waxaan dadka oogu raaxaynay ee adduunyada aanu dadka siinay ha u indha taagin baa layidhi manaa waxaad haysataa kalaamka ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka oo wax ka qaalisanaba yaraatee uusan jirin ayaad haysataa idan marka adduunyo iyo dadkaas waxa ay haystaan indhaheeda ha u taagin ha fiirinin maxaa yeele wax intaba ka qaalisan baad haysataa adigoo qur-aankii kariimka ah haya haddii ay adduunyo aad fiiriso macnaa waxay ka dhigan tahay qur-aanku ima anficin qur-aanku ima anfacaye meelo kalean eegeegayaa bay ka dhigan tahay lidaa waxaa weeye dadka waxaa weeye qur-aanka kariimka intay ay bartaan iyagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa u shaqayn kara iyagoo ilaahay dadkiisa diinkiisa waxaa weeye dadka bari kara oo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dhex jiri kara deedna ayar intay ka dhaqaaqaan shaqooyin kale iyo adduunyo kala raadiya inta badan nolosha waa lagu cidhiidhiyaa dhib badan bay kala kulmaan waxaa dhaama midka waxaa weeye aan qur-aanka barashadiisi iyo diinta aan soo dhexgelinba ee banaanka ka xamaasho halkaa kasii dhaqaaqay yaa laga yaabaa inuu dhaamaba qofka ilaahi subxaanahu wa tacaala diinkiisii dhexgalay waxbarashadii diinta dhexgalay qur-aankii barashadiisa dhexgalay oo haddana kasii jeedsaday macnuhu waxay ka dhigan tahay meeshan ima anficin qur-aanku ima anficin bay ka dhigan tahay markuu ka dhaqaaqayo waxaan aada isugu dhiirigelinaynaa inaan ilaahi subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa aan baranno aan weliba barashadiisa adkayno si fiicanna aan ugu dadaalno macnihiisana aan baranno kuna camal falno taasaan isku dhiirigelinaynaa waxay ka mid tahay xafladani waa un qeyb dhiirigelina un waa un la isku dhiirigelinayaa in qur-aankii la barto in qur-aankii lagu camal falo in qur-aankii la adkeeyo intaan baa la isku dhiirigelinayaa waa dhiirigelintaasoo ficil ah un
marka ilaahay subxaanahu watacaala culimada soo qababaalaysa ha ka jazeeyo inaguna dhiirigelintaa intaan u qaadano aan dadaalkeeda la imaano oo aan si fiican ilaahay subxaanahu watacaala diinkiisa aan u baranno wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu